Su'aasha ku weydiinaya waxay tahay waa maxay sababta ku raacdeen haddii aad tihiin wiilasha Soomaaliyeed gabadhaas u dhalatay wadanka Suudaan bal faahfaahin si waxa jira gabdho badan oo u muujiyay jacayl ama inay jecel yihiin kuwa waxba jira dhahay jeelka la seexanaaba wiilkan 24 sano oo xariga baa lagu xukumay marka arinta maxaad ka leedahay aad baan ugu xumaa in xaajiga gorta jeel galiyo aad baan ugu xumaa in xaajiga gorta jeel galiyo السلام عليكم وعليكم السلام ku soo dhawaad channelka Nugaal Films and Vlogs soo magaca ku bilaabaya walaal waa ku dhawaay channelka magacaygu waa wiilasha cadaanka walaal magacaygu waa wiilasha cadaanka walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داوديال halkan naga daawanaysa waa Nugaal Films and Vlogs maanta yaa garabkayga maanta waxaan aniga cadceed waxa idin soo wadnaa waxaan su'aalo weydiin doonaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe ee gobolka Nugaal su'aalahaas maxay noqon doonaan adinka arki doona asxaabina soo raaca insha Allah assalaamu calaykum wa calaykum salaam ku soo dhaw Nugaal Films and Vlogs soo magaca ku bilaabaya magacaygu waa Ikraam Maxamuud Jaamac waan ku dhawaabay Ikraam sidoo aragtan su'aal ku weydiino waa fiicanta okay Ikraam ayamaha waxa jirtay arin social media ama baraha bulshada aad loo dhexmariyay waxa jira wiil dhaw Macron oo u dhashay dalka Mareykanka wiilkaas oo lagu xukumay jeel 24 sano xariga marka gabdho badan waxa jira Soomaaliyeed oo arinta ka filcilinaya oo dhahay wiilka waan jecelahay kuwa dhahay badartiis bandiinta uga bixi karnaa marka arinka maxad ka leedahay adigu arinka kuma taageersin sababta diinteeda nin gaal uma raacayo okay marka maxay tahay fariinta gabdhaha Soomaaliyeed halkan u gudbinaysa halkan ma saad leedahay ninka gaalka iska daayay baa diinteena raaca waa ma santaa assalaamu calaykum wa calaykum salaam baay ku soo dhaw Nugaal Films and Vlogs oo magaca ku bilaabaya magacaygu waa Fihima Abshir Fihima sidoo aragtay su'aal ku weydiino diyaar baa kaaga jawaabaya okay Fihima ay baryahanba waxa jirtay arin social media ama baraha bulshada haysatay taasoo ah wiil u dhashay dalka Mareykanka oo loo Macron oo dambi uu galay dartiis lagu xukumay jeel 24 sano xariga marka waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed arinka ka filcilinaya oo jacayl soo bandhiganaya oo dhahay wiilkaas baan jecelahay ama arrimo badan waxaas marka maxad ka leedahay arinkaas baaynaageen waa waasheen fahamtay waayo nimanka Soomaaliyeed ma xiiseynayaan nimanka kale oo sheeyaha saas ugu doodayaan laakiin wiil kale oo mataqana Soomaali markuu wax sameeyo oo kale uma filcilinaya laakiin ninkan waa xiiso maalmuhu socda haddana waa iska damay naan kastana kibir qooq bay la taarun fahamtay aaga waxaan dhahayaa waxa wada naga joojiya ama santaa fiimay walaal macnaada ku bilaabay magaca aan dhawaay Cabdishakuur Maxamed Cabdishakuur waxaan ku soo dhaweynaa kanaalka yaga Nugaal Films and Vlogs sidoo artayna su'aal ku weydiino wallahi waa si fiican aad su'aal la isweydiiyay wax dhiba ma arko aad iyo aad u mahadsanaa su'aasha ku weydiinaa waxay tahay maalmahan waxa baraha bulshada ka socday loolan u dhaxeeyay wiilasha iyo gabdhaha loolankaas oo ah inay wiilasha Soomaaliyeed ay wateen gabar u dhalatay dalka Suudaan magaceeda liyaanada gabdhuhuna ay wateen wiil u dhashay dalka Mareykanka magaciisa liyaa Cameron marka adii su'aasha ku weydiinaa waxay maadaama nin dhalinyaro tahay waa maxay sababta aad hadaatay wiilasha Soomaaliyeed aad ku raacdeen gabadhaas sababtaan ku raacnay waxaan ku raacnay sababtaan ku raacnay gabdhii Soomaalidii baan dhaaminba lamida oka wixii dhan baa iska qasan marka taa lacagta aysan raacna taadiraad lacag sama aad iyo aad u maasan tahay soo dhaw walaal macnaado ku bilaabay magacaaga waa dhawahay magacaygu waa Cabdixamiid Calaan Cabdixamiid oo ku soo dhawow channelka Nugaal Films and Vlogs inaan su'aal ku weydiino sidoo aragtaa diyaar way waan ku dhawahay channelka Nugaal Films and Vlogs waxaan leeyahay hore socod waa ma santaa walaal qaali waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo su'aashaas oo ah maalmahan baraha bulshada wax ka socotay loolan u dhaxeeyay wiilasha iyo gabdhaha kaas oo ku saabsanaa in wiilashu ay raaceen gabar u dhalatay dalka Suudaan magaceeda liyaanada iyo wiil u dhashay dalka Mareykanka magaciisa liyaa Cameron marka adiga maadaama wiilta su'aasha ku weydiinaya waxay tahay waa maxay sababta ku raacdeen haddii aad tihiin wiilasha Soomaaliyeed gabadhaas u dhalatay wadanka Suudaan bal faahfaahin si gabadhaas horta wiilasha Soomaaliyeed ma aysan wada raacin laakiin gabadha waxay codsi soo gudbistay wax codsanaya 2 milyan oo followers in la geeyo saas darteed bay wiilasha Soomaaliyeed ku geeyeen laakiin gabdhuhu waxay u sameeyeen oo u raaceen wiilkaas wiilasha Soomaaliyeed ka aarsanayeen waxay islaayeen wiilasha Soomaaliyeed maadaama ay gabadha 2 milyan oo followers gaarsiiyeen idinkuna wiilka 2 milyan oo followers gaarsiiya oo
hadda waxay u leedahay hawshu waxa weeye hawshu waxa ka aarsi ahayd gabdhuhu wiilka ma aysan si kale kuma aysan raacin okay waa maxay marka hadda waxa su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay sababta uga tagteen gabdhihiina Soomaaliyeed oo gabadhaas in follows in la gaarsiiyo sababta gabar Soomaaliyeed codsiga soo dhiibto tiraado follows inta la helay gaarsiiyo waxaan filayaa wiilal Soomaaliyeed aad imiina gaarsiiseen marka Soomaaliyeed codsiga soo gudbistay ma jirta oo tiraado 2 milyan oo follows la gaarsiiyay wiilal Soomaaliyeed hal mar ba ku gaarsiin lahayn waa dhagan nuul yihiin wiilal Soomaaliyeed okay aad waa mahadsantahay walaal Cabdi Xamiid السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal soo dhawow ku soo dhawow nugaal films aan follows adoo magacaaga ku bilaabaya walaal aad baan u dhawaay magacaygu waa Sacdiye Ismaaciil okay Sacdiye sidoo kale dal su'aal ku weydiino waa cad walaalo okay Sacdiye isaynu ognahay waxa baraha bulshada indhaweyd bahaysay wiil yar oo la dhahay dalka Turkiga u dhashay marka wiilkaas waxa jira gabdho badan oo u muujiyay jacayl ama inay jecel yihiin ma kuwa waxa jira dhahay jeelka la seexanaaba wiilkan 24 sano oo xariga baa lagu xukumay marka arinta maxaad ka leedahay aad baan ugu xumaa in xaajiga gortijeel la geliyo leedahay aad baan ugu xumaa in xaajiga gortijeel la geliyo dawladda Mareykanka waxaan ka codsaday in wiilkaas jeel lagu geeyo waana socdaa dee waxa ku yiri jacaylkiisan sariir u saaranaay ka hadal ma leh oo sabab wiilashii Soomaaliyeed oo dhooban aad u jeclaatay wiil Mareykan xitaa waxaan u maleynayaa aadan afkiisa luqadiisa aadan fahmayn labaha la horta Ingiriis qanaaladan kula hadlay waa soo dhawow iyo isjecelnaay aba wiilashan Soomaaliyeed ku lagu hadhuudhuubano bidaarta ma ku jira baa macaan indhihiisa buluuga bismillah qatar waayahay waxa tiri wiilka indhihiisa buluuga wiilasha Soomaaliyeed lagu dhumay adigi baa Soomaaliya aabaha baa Soomaaliya walaalka Soomaaliya marka nin aad ugu xiyay aadan aqoon fahmayn aad isku dhigi isku sinjitoon aydin ahaan seebad ku dooratay oo aad isku aamintay ama jacayl ugu qaata abaayo Soomaalinimadeeda kama bixin abaayo wadayna Soomaaliya waa ogaa laakiin inaad yar waan jeclaaday oo waxaan ku yidhi wiilasha Soomaalida abaay macaan dadka lagu hadhuudhuuban maanta maxay igu soo celcelinaysaa hadda wiilka wad jeceshay miyaa labarkiisa ma haysa marka ma jeel buu ku jiraa marka 24 sano jeelkan kula jiray codsigaasna waa gudbisaday marka ma islaaday waa laga aqbalayaa ama dawladda Mareykanka way ka yeelaysaa arrinkaas hadii la diido waxaan ka baqaynaa isdaldalo ama santa walaalo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow walaal macnaado ku bilaabaya magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم ودوهي waxa la فيصل محمد عبد فيصلو ku soo dhawow kanaalka yaga nugaal films and vlogs sidee u aragtay inaan su'aal ku weydiino waa okay waa soo dhaweynaya shuwaashaas waxaan rabnaa inaan su'aal ku weydiino maalmahan baraha bulshada waxa ka socotay loolan u dhaxeeyay wiilasha iyo gabdhaha halka gabdhuhu ay u codeynayeen wiil uu dhashay dalka Mareykanka magaciisana Cameron la yiraahdo nin dhalinyaro ah wiilkaas oo lagu xukumay 24 sano oo xarig ah asagoo 22 sano jira iyo gabar dhalatay dalka Suudaan magaceedana la yiraahdo marka waxaan ka rabaa in aad su'aal ku weydiiyo sababta hadii aad wiilasha Soomaaliyeed aad ugu codeynaysan gabadhaas u dhalatay dalka Suudaan ma wiilka loo codeeyay Mareykanka ka jooga mise waxa loo codeeyay gabdhuhu maxay codeeyeen igu celi su'aashaas gabdhuhu waxay u codeeyeen wiilka dhalinyarta oo u dhashay dalka Mareykanka wiilashana waxay u codeeyeen gabadha marka adigu gabadhu wuxuu dhalatay dalka Suudaan bay u dhalatay waxay la tahay horta islaamnimadu wax weyn weeye waxaan malaynayaa qofka islaamka baan horta inuu soo dhaweynayaa ma fahamtay sax hadduu wiilku islaam yahay waa caadi wiilku waa loo codayn karaa laakiin hadduu xadka ka baxsan yahay kolley wixii islaamnimada ku dhowaan anugu la jiraa marka waa maxay sababta aad uga tagteen gabdhihiina Soomaaliyeed oo kadibna ugu codeynaysan gabadhaas aad ugu codeynaysan ma gabadha Soomaaliyeed gabadha Suudaan u dhalatay dalka Suudaan gabadha u dhalatay Suudaan bay gabadhu u dhalatay hadalka ay dhaafay marka hore shaqadiisa dalka Suudaan buu dhalatay gabadhu wiilkana u dhashay dalka Mareykanka waana Soomaali dalka Mareykanka u dhashay Soomaali ma labada midna Soomaali ma ahan laakiin dadka gabdhihi Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed baa labadooda kala codeynaya okay haddaan fahmay su'aasha awal oo dhan ma fahansanayn waxa soo dhaweynayaa gabadha sababta ku soo dhaweynaysid waa maxay waxaan ku soo dhaweynayaa gabadhu waa gabadh islaam wadan islaam u dhalatay sax saasaan ku soo dhaweynayaa hadda saasa kaga tagaysan gabdhihiina Soomaaliyeed oo aad ku raacdaan gabadhaas dalka Suudaan u dhalatay adinkoo waliba islaamnimadaas soo dhaweynaya aad iyo aad u maasantaa Faysal waa maasantahay السلام عليكم باي عليكم السلام باي كسو دو channel nugaal films adoo magacaaga ku bilaabaya waan dhawahay baay magacaaga miski maxamed
nasri miski maxamed saciid miski sidoo artay dar su'aal ku weydiino caadi okay miski waxa jirta ayaamahanba social media iyo baraha bulshada waxa lagu hayay wiil dalka Mareykanka u dhashay wiilkaas oo la dambi uga dartay ayaa waxa lagu xukumay 24 sano oo xarig ah marka waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo yaani ficil u muujinayay inay jecel yihiin wiilkaas ama taqaana ka damqanayeen qaar waxa ma arkay dhahay dartiis diinta uga baxana marka arinta maxaad ka leedahay horta wiilka dhinac marka loo fiiriyo xagga iyo mustaqbalkiisa bilaadan baa leeyahay oo in damqasho way dhici kartaa inkastoo isba u dadlaayay ma fahamtay gabdhahan Soomaaliyeed ba ku soo haray oo u hiilhiilinay ma yaqaan mana garanayo dad baa dhalay wiilkaas okay marka fariinta hadda halkan gabdhaha Soomaaliyeed u marinaysa ma aad leedahay oo ku dhiirigelinaysa maxay tahay aniga waxa dhihi lahaa gabdhahan Soomaaliyeed waxyaalaha ay ku hadlayaan inay iska eegaan oo hadalkooda miisaamaan taas fariin u marin lahaa mid kalena waxay tahay wiilkan xukunka dawlad buu ka dhashay Soomaha soo marka ani waxa dhihi lahaa dad kale diinta uga baxaynaa iyo ilaahay way idin arkaa waxa la iska daaya dhihi lahaa ani waa mahadsantahay soo dhaw walaal ku bilaabay magacaaga waa dhaway magacayga Cabdulqaadir Abdullaahi Sheekh Cabdulqaadir sidoo aragtay inaan su'aal ku weydiino anaga kugu soo dhaweeyna kanaalkayaga Nugaal Films and Vlogs waa saanta in la weydiiyo haddaan ka jawaabi karo aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabnaa su'aal ku weydiino su'aashaas oo ah maalmahan waxa ka socday baraha bulshada loolan u dhaxeeya wiilasha iyo gabdhaha wiilashu waxay codeynayaan gabadh dhalatay dalka Suudaan wiilkana waxay codeynayaan wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Mareykanka gabadha wiilka wax la yiraahdo Cameron gabadhana wax la yiraahdo Nada marka waxaan ka rabaa su'aasha adigu weydiinaya waxay maadaama ay wiil tahay hadda tii wiilasha Soomaaliyeed waa maxay sababta uga tagtay gabdhihiina Soomaaliyeed inuu raacdeen gabadhaas u dhalatay dalka Suudaan ma taas ani waxaan arkaa haddii gabar Soomaaliyeed ay tahay in la raaco waa aan arki lahaa laakiin gabar kale oo meelaha joogta in la raaco sax ma arko marka aad iyo aad u mahadsan tahay waan ku soo dhaweynaa kanaalkayaga aad iyo aad waan u mahadsan tahay su'aasheedu intaas ku egtaa waa mahadsan tahay walaal ku soo dhawow Nugaal Films and Vlogs magacaaga ku bilaabaya magacayga waa Kawsar Axmed Cabdi Kawsar sidoo arday su'aal ku weydiino waa caadi weydiin kartaa okay Kawsar sidoo ognahay baraha bulshada social media ayaamaan waxa lagu hayay wiil Mareykanka u dhashay wiilkaas oo dambi u galay dartiis oo lahay hooyo ciyaalkeedii bilaay lagu xukumay xarig la yiri waxa lagu xukumay 24 sano xarig ah marka waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo ka filcinaya arrintaas ama dhahay wiilkaas waan jecel muujinay marka arrinka maxad kale maxay isku dursan gabdhaha Soomaaliyeed wiilka cadaanka ah oo la xiray iyagu ku wiilasha Soomaaliyeed jooga wallaahi fikirkayga hadaan ka hadlo waxaan dhihi lahaa waxay ku doorteen quruxdiisa laakiin saani ahaan maadaama uu yahay gaal haddana uu dil geystay ma doorteen okay maxay tahay marka fariinta u dirsan gabdhaha Soomaaliyeed ani gabdhaha Soomaaliyeed waxa u diri lahaa maalin kasta wiilal Soomaaliya rag baa yaani dil geysta oo xabsi lagu xukumo 24 sano ka badan hadana saas ay tahay ma loo ololeeyo ninka gaalka in loo ololeeyo waa ka soo horjeeda waa maasanta qurxay assalaamu calaykum wa calaykum salaam ku soo dhawaad channelka Nugaal Films and Vlogs magacaaga ku bilaabaya walaal waa ku dhawaay channelka magacayga waa wiilasha cadaanka walaashood magacayga waa wiilasha cadaanka walaashood magacayga waa wiilasha cadaanka walaashood okay sidoo arday su'aal ku weydiino waa caadi walaal soo dhawow waa weydiin waxa jirta ayaamaha arrin baraha bulshada la wareegay ama social media dhex marisay taasoo ahayd wiil la dhaho Macron magaciisa aan ma karo wiilkaas u dhashay dalka Mareykanka marka waxa la dambi u galay dartiis ayaa waxa lagu xukumay 24 sano xariga marka waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo ka filcinaya wiilkaas arrintiisa ayagoo jacayl u soo bandhiganaya oo dhahay wiilkaas aan jecelahay marka arrinta maxad ka leedahay wiilkaas oo kale looguma talagalin inuu galo jeel sababtoo ah rag badan oo Soomaaliyeed oo cagabaastaba joogaya loogu talagalay inay jeelka galaan kowdhe waxaan dhihi lahaa 4 sano ha loogu bedelo 100 kamid ah Soomaalida ragooda sida aanu qabo sababtoo ah qurux jamaal joog ilaahay waa siiyay kaas waa jannada adduunka dhihi lahaa okay marka wiilashii Soomaaliyeed oo kula dhashay oo walaalka ku jiro aabaha ku jiro adeerka ku jiro aad ka caratid oo mid aan kula diinahayn oo kula dhigahayn oo kula dhaqanahayn aad dhahdo waa u helay ma waan jeclaanay waan raacaya arrinkaas waa tam kala qurux badan tahay baay jacaylku indha male quruxdaas aan u jeednaa aabahay hooyaya ka hadlisay walaalo toonna ma garanayno ma garat marka gabdhaha Soomaaliyeed way jeclaaneen mid kaas waxa la jacayl bas sababta kuwa waxa jira isku meel ay joogaan adii doonaan afkoodan yaqaan waxa laga afkiisa xitaa aan garanayn
marka arrinta maxaad ka leedahay carba wiilkaas lagaaga hormaray adoo saa u jecelo dadkii xitaa wiilashii xitaa caayay oo lagu baasiix ku sheegay asaga mintiisa baan arkinay walaal maxkamadda aan gudbinay codsigaas ninka raga maxaa la jimaaca laga soo saaro ma islaada maxkamadda arrintaas waxay ka qabanaysaa walaad ka aqbalay codsiga sida rajeen waan ka aqbalay hadii kale Soomaan waa sugaynaa 25 sano soo socotay inaan sugno waxaan leenahay kaasoo kale looguma talagelin inuu jeel ku jiro waa si walba ahaato Cameroon qalbiyadeena ku nooshahay qalbiyada gabdhaha Soomaaliyeed soo dhawow waa ku leenahay السلام عليكم سودو ولا المعنى ku bilaaway magacaaga Abdullahi Maxamed Salaad Aliya Abdullahi ina su'aal ku weydiino sida aragtaa waa wax wanaagsan weey aad iyo aad oo maasan tahay su'aasha ku weydiinaya waxay tahay maalmaha waxa baraha bulshada ka socday loolan u dhaxeeyay wiilasha iyo gabdhaha gabdhihii Soomaaliyeed wuxuu u codeeyay wiil u dhashay dalka Mareykanka magaciisa la yiraahdo Cameroon gabdhihiina wiilashina wuxuu codeeyeen gabar u dhalatay dalka Suudaan gabdhihiina wuxuu codeeyay wiilashina wuxuu codeeyay gabar u dhalatay dalka Suudaan magaceeda la yiraahdo Nada marka su'aasha ku weydiinaya waxay tahay hadii aad tiin gabdhaha Soomaaliyeed sababta ku raacdeen gabadhaas walaal labada waxyaalood baa ka jawaabaya sax noo Suudaan iyo Yurub kala mid ma noo Soomaali baan marka Soomaali waxaan taageersanaa sax waa ka aad iyo aad oo maasan tahay marka sababta uga tagteen gabdhihiina Soomaaliyeed waa maxay marka hadda tiin wiilal Soomaaliyeed maadaama gabdhaheena Soomaaliyeed baan rabnaa Soomaali baan taageersanaa aad iyo aad oo maasan tahay walaal aad oo maasan tahay aad iyo aad oo maasan tahay asxaabta halka nagala socdaa waa nugaal films and vlogs galabta waxaan su'aal soo weydiinay dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe caasimada dowladda Puntland hadda waxaan noo soo xirmaday barnaamijka iyaga aanu bilownay galabta aad iyo aad baan ugu wada maasantiin asxaabta waxa leenahay nala socda leegtii sheerka iyo commentiga waa xaqiina